hodanke ali inhibi hantido kubuto kuin dhasabantinga singhasosiye dulken hodanke ali inhibi hantido kubuto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوداشنا قيمة قيال وكسر دوادة استوديو كالسن وكيالو مجالدا بيدبا حرنتو قبل كباي دودي البرنامج كينا تضبط كانوا وحن كسر قاعد دونا برو بيدوتشناي يبروا قديدا دولي البرنامج كوحني دادي دونا أنيجو عبد القادر حسن عبد القادر جوكر dawdana waxaan gudu galeynaa barnaamijkeena baro baydhabo iyo barwaaqadeeda magaalada Baydhabo oo kamid ah magaalooyinkii aad u saameeyay dagaaladii sokeeyay Baydhabo ayaa hata waxa ka muuqda soo kabasho dhinac horumarka ah waxa imanka soo wanaagsanaanayo bilicda magaalada ayadoo dhan kasta laga dareemayo kuwa dhaqaalaha iyo ganacsiga waxa muddooyinkii dambe laga dhisay suuqyo aad u weyn oo leh daaro aad u qurux badan waxa sidoo kale soo kordhay dadweynaha ku nool magaalada ayadoo dib ugu soo noqday dadkii hore ugu barakacay magaalada Baydhabo taasi oo keentay in magaalada hore u sii ballaarato dhanka kale magaalada waxa ku gaaf wareegsan dhul ballaaran oo loo adeegsado beerashada iyo daaqsinta xoolaha waxa maanta ii suurto gashay in aan magaalada uga baxo dhinac bari halkaas oo aan kula kulmay waxyaabo fara badan oo hindheyga soo jiiteen kuwaasi oo kamid ah beeraha iyo xoolaha haddaba Idris Doctor oo ah qabiirka beeraha ayaan wax ka weydiinay beeraha iyo daaqsinta haddaan ka warno xaaladda guud ee gobolka Baay iyo Bakolba waa gobol Ilaahay ku manaystay kheyraadka kala duwan waa gobolka ugu wax soo saarka badan waxaad arkaysaan Baydhabo waxaad arkaysaa dhul ka bilaabmaya magaalada Baydhabo aad ka tagaysid aad ilaa aad Jubbada Dhexe aad ka tagaysid dhul siman waay dhulkana caradiisana waa fiican tahay waa dhul beeraha ku wanaagsan waay waxaana ka baxo saad dareemaysaan masagada ka baxdo digirta ka baxdo sisinta ka baxdo lowska ka baxo salbukoda ka baxdo gabaldaya ka baxo qaar waxay isugu jiraan oo saliid soo saaray sida sisinta iyo lowska iyo gabaldayaha kuwa kalena waa sidaad aragteen waa masagadii iyo galeydii waay oo carbohydrate laga helayo digirtoo laga helayo protein waa dhulka ugu wax soo saarka badan waaye waxaad arkaysaa dadkooda sidooda waa beerley laba waqti ayay roob helaan waa guga iyo deerta helaan hadda waxa lagu jiraa guga sanadkan waa soo hormaray roobkii Ilaahay waxa waaye mar hore uu keenay ayadoo lagu jiro Maars 13keedii oo jiilaal lagu jiro ayuu roobka yimid roob fiican la helay dadkii kulli waxay ku mashquulsan yihiin beerahoodii abuurteen badana beerihii waa soo baxeen saad ku arkaysaan sawirada waxa way beerihii already waa soo baxeen ayagoonan hay'ad u baahanin sanadkii ka horeeyay oo deerta ayay waxay heleen barwaaqo heleen masago fiican la helay masagada hadda suuqa waxa ku helaysaa kushina hata waa ku helaysaa hadii la fiiriyo digirtii oo awal ahaan jirtay kiiladii 30,000 60,000 tagi jirtay hadda waxay joogtaa 5,000 4,000 ku helaysaa meelaha qaarkood 3,000 ka helaysaa waxa wax walba waa soo jabaan dadkii kuma tiirsana hadda wax samafal oo hay'ada Ilaahay ku ay aamineen 2 sano oo barwaaqay heleen waxa waa suuq meel walba aad tagtid masagadii waa arkaysaa soo bax salbukaad arkaysaa gabaldayaha arkaysaa sisintii arkaysaa markan dadkii waxay u baahan yihiin hadda anoo ka hadlay dhinacaas wax soo saarka dadkii ma helin wax oo tababara oo ku saabsan aqoontii beeraha waxa laga yaabaa qof 40 sano 50 sano masagu tacbanay dhulkii lan soo masagu tacab dhulkii meelaha qaarkood waxa ku arkaysaa in hadii wax lagu abuuro aysan soo bixin badana waxa keenay waxa waa dhulkii hal dalag uu ku beerayo waxa la rabay in dalagyo kala duwan ay ku beeraan dadkii aqoon ay helaan dad macallimiin ah waxa jirta dad badan oo wax soo bartay oo dibadda iska jooga cilmigooda aysan ugu faa'iideynin dadkii ay ka dhasheen waxa loo baahan yahay in ay dadka u yimaadaan dadka wax soo bartay oo dibadda jiro kan wadanka jooga xataa inuu isxilqaamo annaga hadda mashaariic si voluntary aan ku shaqeynayna aan u sameynayna dadka tababaran siinayna waxaan leenahay sanadkan hadaad masagada abuuratay masafiiri dhibaatooyinka ay qabaan waxa kamid ah cayayaan dhibo dhunqabada dhibo shimbira dhibto waa hal cudur way masaga kaligiisu abuurana qaarkood markay masagada abuurtaan halkii cudur mar walba waxa way meeshii joogaa shimbirtii kama dheeraanayso waxa way waxay ku jirtaa jiqdiga ku jirtaa meesha duurka ay joogtaa
isla markii badarka la abuuro uu soo baxo oo milky stage uu noqdo waxa waaye waa soo attack gareynaysaa haddii laakiin digir uu ku bedelo oo galey uu ku bedelo ama loos uu ku bedelo dalag bedelkaas cilmigiisa in loo sheego dadkii habka loo kontroolayo cayayaankan dhibay sida looga hortagayo waxay leeyihiin daawan rabnaa daawadii waddankaaba ka helaysaa geedaha ka helaysaa waddankee haddii cilmigeeda aad taqaanid daawadii adaaba samaysanayo barkeed dadkii cilmiga ka wada maqan tan kale waxaan kuu sheegaa dadku waxay u fiicanaa la helay beerihii waa kusoo baxeen daaqii waa soo baxay xoolo dhaqatadii aaday u faraxsan yihiin caanihii waa jaban yihiin geelii waxa waaye meel walba oo daaqu ku haystaa iyo lo-dii iyo arigii waxaad arkaysaa dad leh oo biyo badanana yimid roob fatahad waa 50 milimitir wax yar oo roob qubtay waaye waxa waaye waxay leeyihiin waa wadankii fatahada ka jirto wadankii waxa waaye beerihii sanadkan ilaahay biyo ku siiyay inaad ku shukrin lahayd waxaad leedahay qayladaan aad guri ku raasanaysaa waran guriga dhulka kala soo baxay taas ku fiican waxa jirta dadkan waxay u baahan yihiin in laga dhaqaaleeyo waxa waaye development in loo sameeyo ninkii beeralayda ahaa ma haysta cagaf weligood maba la siinin ba cagaf dadkan maba soo marin ba cagaf in la siiyo oo cagafidii oo dhulka caragedinayay tii beeraysay tii falaysay waxaas dhan ma haysto xataa ma haystaan dibigii haystaan xoolihii xoog xoolaha hadii adeegsan lahayn qalabkii dibiga ma haystaan hay'adihii waxay rabaan inay loor masiga oo dadkan soo saaranay inay keenaan masiga wax dhaafsiin oo dadkan la siinayna maba arkin baa annaga waxa way mashaariic development inta u sameyn lahaayeen beerihii loo maalgelin lahaa iskaashatahan la isugu xiri lahaa sidii dadkan hadhow hadii dib abaar ay imaato keed weyn loo sameyn lahaa sidii waagii hore oo la sameyn jiray dawladii siyaad bari jirtay ADC wax la dhihi jiray la sameyn jiray waxa waaye beeralayda waxa waaye mashruucaas loo sameyn jiray oo developmentiga oo iskaashatahan hadda wixii ma jiraan dadkii waxay u baahan yihiin nina wuxuu soo saaraa sisin wuxuu soo saaraa gabalday wuxuu soo saaraa loos saliida laga sameeyaa barkee asagana saliid oo caday oo laga keenay Abu Dhabi emaalaha soo gaadana asagaaba sameystay aqoonteeda ma yaqaan waa inuu ninkii helaa warshadii lagu ilaan saliidii soo saaraya hadda saliid haduu rabo inuu oo sisinta uu ka dhigto saliid wuxuu imaana meel magaalo imaana waxa laga yaabaa 100 kilomitir inuu baabuur u soo raaco وماشي قسم وحكفي عن دتك هل مشروع أو وناكسن أو صدق كان سنة أنا هيدا مسوي شقين جري هيدا أنا مشقين ماله UNATO international هذا NGO هذا صدق سنة هل سنة مسيرين وشقين هاي وحن دتك كذا دعسين وين ومدن مشاريع وحق الأسمية مرة بان دتك وحواي دت بربوز اللي قصوا قاتوا دنا هذا وقت دتك وحلو سمين كلا development project وحلو سمين كلا محلي وحرك ساعات تيجلو إيريدو دتك وحيسوس صارن شندي وحواي شندي dadkii ma haystaan mashruuc ku saabsan shinnida ma haystaan la baro way oo ay xanaanayaan shinnidaas meel biyo ay ka cabto xanaanayaan mashaariic loo sameeyo warshad yar loo keeno oo malabka sifeynayso waxyaalo badan in loo sameeyo ma la sameeyay dadkii hal mashruuc wali wada siiyay male waxa way korkoodana malaayiin dollar lagu soo qaatay sanadii hadda ugu dambeeyay oo macluush ay jirtay wax loo qabtay male laakiin ilaahay waxaan ku mahadinaynaa sanadkan in gacan kale aan loo baahanin dadkii aysan abuurba ayaga abuurkoodii abuurtay dad abuur siina ma jiro waxa jira tuulooyin waxaad arkaysaa qudaartaas leh iyo geed miroodkaas u soo baxay sida bakalla meel la dhahay qaahire dhulkan hareeri jiif loo yaqaan waxa waaye dad ku takhasusay way qudaartaas iyo geed miroodkaas way waxa ka baxa buna ka baxa meesha dadka ayaga sameeyay dadkan la reer banaanay cooperative waa dad shaqeysto way wixii la siiyo xataa oo kaalmo lagu siiyo ama waxaad arkaysaa waxay haystaan qalabkii la siiyo waagii siyaad bir waa haystaan waa dad wax tacbanaayo way ayaga kaligood maaha dhul badan oo waxa jiro laga soo saaro qudaartan geed miroodka oo banaanka gudaha Baydhabo waxa jira valley-gan weyn oo toga ah oo garbada ilaa aad ka tagaysid Doygaab dhulka la yiraahdo ilaa Buuraka dadka ku taxan valley-gaas kulliga waxay beertaan maxaa la qudaartay beertaan zeytuunkay beertaan cambahay beertaan waxay beertaan leemaday beertaan any kinds of fruits waa beertaan noocan kale oo qudaartan waa beertaan ansalaata laga helaa wadanka waa aragtay koostada laga helaa dada sameystay waxaas oo u jeestay dhulkoodii aaminsan inay wax kala soo saartaan dadkii laakiin waxay u baahan yihiin ma haystaan cilmigii waxa waaye annaga hadda tababar yar aan siinay oo aan saas u xooganeen dadkii cilmiga ka maqan waa in dadka aqoon-yahanada oo goboladan Baybakol wadankan dahab wax laga soo saaray waa arkaysaa geedaha 20 jiro waxay ka bilowday ilaa tiyaglo dadku shiniday maxaa la leeyahay malabkaas ay soo saaran caagi malab waxa uu gaaray sanadkan $1,500,000 waa $100 uu gaaray laakiin dadkii ma helin maxaa la leeyahay tababar ku saabsan honey processing program ama beekeeping ma helin waxa in loo sameeyo mashruuc oo food processing ahaado honey processing ahaado mashaariic ayaga ay maalgelina in lagu sameeyo way
hay-adahan hadda inta joognay 30 sano burburka 20 sano 2 sano waa ka hor ilaa hadda wax loo qabtay mala waagii ay dawladii siyaad bar ay jirtay wadankan waxa laga qabtay waxa waaye beeraleyda meel walba tuulo walba waxa laga dhisay guri xafiis uu leeyahay qof fidiye beerad aqoon beerad leh meesha la geeyay asaga tababar siinay beeraleydii waa nin aqoon yahan oo beeraha ka soo taqa dugsi sare beeraha ka soo baxay ayaa baadii la geynay ayaa dadkii wax barayay qalab la siinay laakiin wixii ka dambeeyay 22 sano waxa uu maleynaa mashaariic milyan billions dollars lagu soo qaatay waa emergency case ku baxay development project wax la sameeyay male ceelashii dadkii oo qudaarta soo saaray wax tababar la siiyay aqoonta beeraha male home garden project in loo sameeyo mashaariic oo fruits and vegetables already ma loo sameeyay markaan waxa way dhaliile ay leeyihiin waay qudaarta waa soo baxday Baydhabo waxa waaye qudaarta sideedaba dadkan oo hadda beeraha agaarkan Baydhabo degan waxay aad u soo saaraan koostada waxay soo saaraan ansalaatada waxay soo saaraan begelka waxay soo saaraan maxaa la dhahay nooc kasta oo ku saabsan qudaarta iyo geed mirooda u soo baxa qudaartan sideedaba 1 month 25 days ka bacdo waa soo baxaysa waxa arkaysa hadda nin aan shalay u tagay beertiisi birday maalintii wuxuu helaa 5 milyan oo shilin Soomaaliya halkii maalin wuxuu soo koostada ugu badan magaaladan asaga keen waxa way dada suuqu keena waa laga wada qaadanaa wuxuu keena babayo keena waa laga wada qaadanaa waxa beertiis marba fasal kasta waxa u soo gaay mar babayo u soo gaay mal basara u soo gaay mal waxa u soo gaay bigil mal koostada oo dadka ay aad u jeceliin hadday barteen dadka qudaarta awal ma ba kasi jirin haddaan wax yar ku sheego hadda koor annaga mashruuc waxaan ka fulinay degmada Waajid oo home garden project la asagana qudaarta iyo geed miroodka qaabilsanaa Waajid dadkooda waxa waa dad daaqsimeed iska hayn xoolo dhaqato ah arigay u badnaayeen dad xoolo dhaqato ka iyo geela iyo lo'da u badnaayeen beeraley meehan waxaan fikirnay dadkii waxa waa guri walba ceela ku yaal guri kasta oo Waajid kamid ah ceela ku yaal waa fikirnay waxaan aanay dadkan biyo haystaan maxaa ka maqan waxa waaye xoolihiina waa haystaan masagadiina waa haystaan maxaa ka maqan qudaartii dadkii waxaan ka dhaadhacsanay guri dadkii intaan aruurinay 20 qof ayaan tababar siinay waxaan barnay faa'iidada qudaarta ay leedahay barkee qofka bani aadanka jirkiisa wuxuu u baahan yahay carbohydrate oo u baahan yahay waa masagadii waxa laga helaa iyo galeydan iyo burkii protein waa u baahan yahay waa digirtan iyo waxa xoolaha laga helaa hilibkii iyo waxa qofku waa ku cayila protein ku noqona waa cayila carbohydrate qofka energy ku qaada maanta beertiis waa fashan kara laakiin labadaas waxa ka fiican vitaminka macnihiisu waxa waaye qofka awoodda difaaca jirka cudurkii soo weerar la oo ka difaaca waxa laga helaa vitaminna waxa laga helaa qudaarta laga helaa iyo geed miroodka laga helaa waxa waaye waxaan dadkii ka dhaadhacsiinay ilmahoodii inay koosti u abuurtaan ceelkooda ugu faa'iideystaan markaan waxaan siinay annaga aan ku taakuleynay super money maker baa la dhahay oo bam ah biyaha soo saaray biyooda waxa waaye 4 mitir 3 mitir 5 mitir waa ilaa 6 mitir ugu weyn super money maker kaas qofkii hatta exercise u tahay oo gurigiis jooga xilliga oo shaqada uu ka soo tagiyo waraabsana beertina qudaar ka abuurna hadda Waajid hadda idin dhaha ka waran maxan baa laga helaa zeytuun laga helaa Waajid oo shiidlowga waxa waaye aqoonta meesha geeyna dadkii waa ka faa'iideysteen qof gurigiis waxa arkaysaa oo ستمان كبعدي أي كوست وصوقه ستمان كبعدي بيجل وصوقه المية قضاء دتك قضاء يعلن فيتامين يعلن فيتامين كسيدي سبب دتك وحكوا ذا مكان وحارجع دتك وحواي راشين وعنا محا حييس كده جالس ليس دواء عطوه وحكم مكان فيتامين كيا كم مكان قف كدي أو فيتامين بدن واستعماله وقدار بدن واستعماله جد مرات كان سيد الزيتون كعنبها كل فيتامين A B C كجرو وحواي أقوانتها سكمل أقوانتي إن البرال الروايو إن بنانا الاسكيس تاجو دي بدأ الأقوام كصوبرتي مشروع وحصوبرتي أجروميستا تاي لكن ودن كا وهم فايدين يصير دي بدي أجوكا وحواي مالقش لولكي بيا لجهلا عردي سوا كلي لوم صويل عرض وفي عنواي وحواي وحصوصار وفي عن لولكي واسميا لول بورا ماها وركالي كفايدين ودن كنا ماذا دتك قربها جل واتهاي داود البرامج كان انت يوم لوجي هاي سداس يوم نبتكلم برامج كانوا حنين دادين هاي أني جوعة عبد القادر حسن وعبد القادر شكرا Sing associate